kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idinka diyaarinay booqashada wafdi uu hogaaminayay wasiirka caafimaadka Puntland uu ku kala bixiyay gobolada Sanaag iyo weliba Highland. labiyo tobanka bishan aan ku guda jirnay Abriil wafdi heer sare oo hogaaminayay wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa ka ambabaxay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaana safarka wasiirka iyo wafdigaasi uu ku wajahnaa kormeerid iyo kurgalida xaaladda caafimaad ee ay ku nool yihiin dadka ay abaartu saameysay ee ku soo xarooday magaalooyinka Baran Dhahar iyo deegaano kale oo hoos yimaada. wasiirka caafimaadka waxaa kormeerka ku weheliyay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdirasaaq Xirsi Xasan iyo agaasimo waaxeedo ka tirsan wasaaradda. safarka wasiirka uu qayb ka ahaa TV-ga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa inta aan ku guda jirnay waxa uu wasiirku indheendheen ku sameynayay saameynta abaarta ku yeelatay dadka deegaanka iyo weliba xoolaha. wasiir Cabdinaasir Cismaan Cuuke iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa gaaray magaalada Dhahar ee xarunta gobolka Highland waxaana uu kurgalayay xaaladda caafimaad ee dadka ay abaartu saameysay. wafdiga uu hogaaminayay wasiir Cuuke ayaa waxa ay gaareen degmada Dhahar ee gobolka Highland. maamulka degmada Dhahar iyo odayaasha ayaa ku amaanay wasaaradda caafimaadka sida ay mar walba kooxo caafimaad ugu soo dirto degmada Dhahar iyo weliba deegaanada hoos yimaada. halkan aanu joogno runtii waa koonaha magaalada degmada Dhahar waana goobihii dadka soo xirooday baadiyaha ka yimid goobaha ugu badan ay joogaan oo halkan ugu yimid iyo wafdi hogaaminayo. waxaan ugu mahad celinaynaa waqti adag ay noo yimaadeen isaga iyo waftigiisa. runtii waa soo dhaweynaynaa soo dhaweyn kalgacal iyo walaaltinimo iyo soo dhaweyn leh waana ka mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad sida la sheegay oo gudoomiyaha degmadu sheegay waxa lagu jiraa maanta xaalad adag 2 sano oo xiriir oo abaar lagu jiraa. dadkii gobolka runtii deganaa baadiyaha dhulka dhan way soo xoroodeen. wasiir waa aragtaa waa dadka kulli soo wada dhaafnay xagga way jiraan dhinac walba loo kaco dadkaasi 30 qoys 40 qoys iyagoo aabay meel walba joogaanin. runtii waana dad boqolkiiba 60 konton aan orkorno xoolihii way ka dhamaadeen oo waxa soo xareysay waa xoolihii iyo camalkii ay baadiyaha ku hayeen oo ka dhamaaday. wasiiraad baan waxaan ugu faraxsanahay inaad dibta iyo dadka tawaalaysan ee walaalaheena inaad la qaybsato u timaado aad baan kaaga mahad celinaynaa soo dhaweynta imaatinkaaga timi mar labaad iyo mar saddexaad. waxa faa'iido weyn noo ah maanta waa maalin abaar ah waqtigu adag yahay caafimaadku dadku u nugul yahay caafimaad darrada loo nugul yahay. wasiir Cabdinaasir Cismaan Cuuke ayaa u mahad celiyay maamulka iyo shacabka degmada Dhahar sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen. wixii maxaan ku raahdaayay wax qabasho u baahan iyo wixii baahiyo jirana la arko la isla wadaago waa muhiim. annaga duruuf waxa sida gaarka noo quseeyaa waa caafimaadka. haddii rabbi idmo hawlaha aan hore uga qabanay maana wixii kale aan qaban karnaa insha Allah waa qabanaynaa. hawlahaas qaar ka mid ah baan u soconaa maanta inaanu annaga iyo hay'adaha nala shaqeeyo maxaan ku raahdaayay sida Save Children inaanu programyo inaan ka furro meesha tan. Dr. Cabdinaasir Cismaan Cuuke wasiirka caafimaadka Puntland waxa uu xariga ka jaray xarun loo dhisay daryeelka nafaqeynta carruurta ee degmada Dhahar. wasiirka waxa uu warbixin ka dhageystay dhakhaatiirta ka shaqeeya xarunta caafimaadka ee degmada Dhahar isagoona qolqol u booqday xarumaha caafimaadka ee ku yaala degmada Dhahar. aanu halkan anagu hadaan nahay mas'uuliyiinta caafimaadka gobolka Highland waxa wadanka saal la socoto de abaaraha ka jira. abaarahaas waa abaara baahsan oo wadanka dhan ku baahsan. qaasan gobolkan waa gobol ballaaran aad iyo aad baan ma taqaanaa abaartu gobolada Soomaaliya buu kala mid yahay. isla markaa waxa dhacday in markii dadkii ay guureen xoolihii wixii dhamaaday wixii kale u guureen gobolka Bari in wixii dadkii maatadii lagu soo xoreeyay meel magaalo kasta ka mid ah. dadkiina markaa ay xanuunadan nafaqa darrada iyo ma taqaanaa shubanka uu keenayo waxaas ay ka dhaceen. isla markaana qaldhalaan soo diray wasaaraduna ay tiiman fara badan oo aan mobile team oo clinical kuwa nutrition kuwa ma taqaanaa ay soo dirtay. isla markaana si fiican wax loo qabtay. haddana ay hawshi jirto wali ay taagan tahay laakiin si fiican hadda meel fiican marayso. waxa hadda istaalka jiifa patient ba hadda jiifa. waxaan aad ugu kaga mahad celinaynaa
mashruucan aad loogu baahan yahay oo maanta halka nooga furayso oo ama taqaanaa xarunta daryeelka carruurta nafaqadarrada liidata aad baan kugu mahad celinaynaa. Highland runtii wuxuu noogu jiraa gobollada Puntland ay saarto xoogga adeega caafimaadka sida Cabsaaq uu sheegay waxaa gobolkan Highland ka howlgala in ka badan 4 xarumood oo wasaaraddu ay gacanta ku hayso oo degmooyinka hoos yimaada waxaa haddeer ku sugan filliga ama deegaamada ku kala maqan in ka badan ilaa 5 kooxood oo wareega caafimaadka saad u jeedaan saaka halkana waxaynu ku daafuraynaa wasiirkuna daafuri doonaa xarunta nafaqaynta muxuu ahaa nafaqadarrada liidata taas oo sida markaanu fiirinay gobollada gobolka la warjeynaa maanta inaan ka furno ay noqotay in priority la siiyo degmada gobolka Highland gaar ahaan degmada Dhaxar taasi waxay sahlaysaa waxa jirtay in runtii dad badan oo nafaqadarra oo carruur u badan halka intii laga qaado Boosaaso la geyn jiray taas ayaan u kaliftay marka in muxuu ahaa 2 degmo oo degmo gobolka Sanaag iyo Highland 2 degmo kamid ah inay helaan xarumo lagu daaweeyo muxuu ilmihii loo qaadiyo Boosaaso oo halka lagu daaweeyo taas ayaa horta keentay waxa sidoo kale in ognahay ama saakaba soo marnay in muxuu abaaruhu ay saameeyeen nafaqadarrada aad u sareyso meelaha inuu soo marnay waxaanu ku arkay runtii carruur aad u nafaqadarran marka si loo xoojiyo marka shaqadaasi waxay wasaaraddu hadda bil ka hor ay MSH-kan cusbitaalkan qayb ka mid ah ay u dhiibtay hay'adda IOM inay ka caawiso oo shaqaalaha iyo daawadaba la xoojiyo waxaan rajaynaynaa barnaamijyadani inay runtii ay soo kacaan waxaa ognahay dhowr sano ka hor mar halkan inaysan waddanka deegaankan hal hay'ad aysan joogin waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa runtii mas'uuliyiinta gobolka ay amniga iyo bulshadaba waa shaqaynta dhow ee runtii ay nala yeesheen haddii ahaan lahayd wasaaradda iyo muxuu ahaa iyo siday ay u soo dhaweeyeen hay'adaha ka shaqeeya deegaankan iyo wasaaradda iyo tiimkaas soo dirnay waa laga yaabaa meelaha kale in wuxuu ka dhacaan laakiin markaan ka hadlayno xagga muxuu soo dhaweynta iyo wada shaqaynta runtii deegaankan Highland aad baan ugu amaanaynaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sida la idin sheegay mas'uuliyad gaar ah baanu iska saaray runta fiican meelaha ay ka mid tahay gobolkan duruufta jirta iyo dhaqaalaha jira waad garan kartaan in wax badan oo aad rabtid kuma suurta gelinayo inaad hal hameen samaysid talaabo mar baa la qaadayaa kuwan hadda la sheegay waa talaabooyinka ugu horeeyay haddii Rabbi idmo laakiin waxaanu damacsannahay in uu soo gaaro gobolkan gobollada kale oo la fac ah ama si maxaan u dhigma waxaan rajaynaynaa marka wixii la qabtay waa sida u qabsoomi lahaayeen dadka mas'uuliyadda oo inay ka soo baxaan xarunta la sheegay oo meesha maanta aan ka furayno muhiimadda gaarka ay u leedahay sidii la sheegay oo socdaalka dheer loo galayo ilma si yar lagu noloshiisa Ilaahay wax badbaadiyo lagu badbaadin karo inta jidka la sii wadaba dayaysan nafta ka dhicin bal hadii maxaan ku rahdaan tiisi galin maarag oo loo dadaali karo bay naga tahay hadii Rabbi idmo socdaalka wasiirka oo halkiisa ka sii socday waxa uu gaaray xarunta gobolka Sanaag ee Baran wasiirka ayaa waxa uu kormeer ku tagay goobaha caafimaad iyo macadka culumta caafimaadka lagu barto oo ay gacanta ku hayso wasaaradda caafimaadka Puntland wasiirka caafimaadka waxa uu sidoo kale kormeeray xarumo caafimaad ee ku yaala degmada Baran waxaana uu dhanka kale booqasho ku tagay cusbitaalka guud ee degmada isagoona warbixin ka dhageystay agaasimaha guud ee cusbitaalka waxa kamid ah sida medical wards oo kale qaybta maartay emergency oo kale qaybta operation theater oo kale qaybta TB center ka oo yana hay'adda muslim ay gacanta ku hayso runtii waxa saaran culays aad u badan macadka caafimaadka Sanaag Midwifery Institute and Nursing waxa uu furay yahay hadda muddo gaadhaysa 2 sano iyo badh qorshahana waxa uu ahaa macadkani ka mid yahay qayb ka mid ah macadyada ka jira guud ahaan Puntland oo dhan oo wasaaradda iyo hay'adda UNFPA ay iska kaashadeen in ardaydu ay la helo arday midwifery ah oo insha Allah mustaqbalka loo diyaariyay inay ka shaqeeyaan gobolada gaar ahaan caasimad walba gobolkeeda in macadyadan ay ku yaalaan marka ujeedada ugu weyn oo loo aasaasay waxay ahayd macadkan baahi ka soo baxday deegaanka baahidaas waxay ahayd degmooyinka iyo tuulooyinka faraha badan
iyo dhul daaqsimeedka aadka u faraha badan ee dhulka ka jira ee ka jirto baahida hooyada dhiig baxaysa ee preeclampsia eclampsiada antepartum hemorrhage macnaha waxyaalahaas waxay yihiin hooyada dhiig karka iyo hooyooyinka dhiig baxaya ee masaafada dheer sii socda ee la geenayo magaalooyinka fogfog baahidaas dhulka jiray marka kulladii wasaaraddu nala joogtaa qorshaha nidaamka macadkana way ogaayeen oo la socdeen aad bay ugu mahadsantahay wasaaraddu qorshaha kan ay keeneen in ardayda laga helo gobol kasta in arday la helo ka soo baxda gobol kasta caasimad kastana laga sameeyo ardayda waxaan qorshaha iyaga anuu macadkan uu furan yahay muddada 2 sano iyo barka waxa u socda theory baa u socda oo inay ardaydu qaataan casharradoodii waxaa nala jooga macallimiin kala duwan isugu jira dumar iyo rag isla markaana muddada inta macadku furnaa soo waday hawlasha shaqada waxa u harsan ardayda ay geli doonaan practical 1 year oo practical oo la geyn doono gobolada soo practical ku qaadan doonaan meelaha shaqada badan ay ka socoto tusaale ahaan isbitaalka weyn iyo MCH-da ku yaala gobolka Bari Boosaaso iyo Garowe in practical-kooda loo kala qaybin doono bisha 6 wixii ka dambeeya ardaydii ugu horeysay oo deegaanka iyo macadkan gala way ardayda tan waxaan rajeynaynaa macadku inuu sii socdo oo arday noocan oo kale fursad noocan oo kale ay helaan qolyo kale si ay ugu shaqeeyaan deegaanka ay haqabtiraan baahida faraha badan ee dhulka jirta si ay la socotaan gobolkan wuxuu ka mid yahay gobolada Soomaaliya ilaa dawladda aadan cadde ilaa xukuumadda hadda jirta farmaajo aan helin baahi caafimaad iyo wadooyinka kaabayaasha dhaqaalaha isla markaana gobolkan waxa weey gobolka labaad ee Soomaaliya ugu weyn baahi badan oo caafimaadna ay ka jirto badan waxa hoos yimaada dhul wadooyinkooda ay adag yihiin oo gobolka maadaama isugu jiro banaan iyo buur dhulka buuraha wadooyinka ay ciidka yihiin waxa nolol ka laga keenaa cases safiir oo muxuu aad u liita oo bleeding la hooyooyinku ay qaarkood dhiig wax leeyihiin qaarkood dhiig kar leeyihiin isbitaalka la keeno waxa marka ardaydu ay ku dadaalaan in ay caseskaas aan la raadino oo ay arkaan practical iyadoo ay u harsan tahay sanadkii practicalka ay u harsan tahay degmada Baran waxaan leeyahay dhamaantiin waxaan aad ugu faraxsanahay sida qiimaha iyo qaayaha leh safarka dheer aad noo soo gasheen oo aad noogu timaadeen gobolka waan rabnay in la arko waxa aan qabanayno oo maxay tan loogu yimaado wax qabadka ee gobolka ka jiro oo dhan in la arko howlo badan baa jira barnaamijyada la qabto way badan yihiin waxa jira maxay hayto shaqada MCH ka sokow tiiman badan oo maxay hayto gobolka ku baahsan oo wareegaya oo isugu jira maxay hayto nafaqeyn iyo daaweyn oo hadda tadan aan maxay hayto aniga laftirkay ka mid ahay kuwa maxay hayto tiimamka shaqeynaya insha Allah oo aan ku jiro kuwii darrada u dhawaa ugu dambeeyay la soo diro kuwii horena way ku jiraan waa la shaqeynaa waa shaqeynaa waa ognahay dhamaanteen tiimamka nutritionka waa ognahay kuwa abaaraha maxaynaha daaweynta waan ognahay kulli waan iska wada warhaynaa halkaas ay nagu yimaadaan mar Allah markii la soo diro halkaas laga wada duulaa gobolka waa laga wada shaqeeyay meelaha aan la gaari karin waa la wada gaaray insha Allah waxaan jeclahay in saa loo sii wado la wada gaaro insha Allah haddaan ka shaqeeyo shaqada MCH-ka wuxuu MCH ka shaqeeyaa shaqadii caadiga ahayd maxay hayto oo routine-ka oo waxa lagu shaqeeyaa hooyadii uurka lahayd dhalaankii nutrition-kii baa ka socda OTB-gii MCH-nkii baa ka jira maxay hayto oo ka shaqeynaya inkastoo maxay TSB ay ka jirin laakiin insha Allah waa rajeynaya asagan in lagu soo diro dular halka noqdo wax qabadka kale to talaalkii MCH-ka ka jira hooyo walba uur leh qof walba xanuunsanaya hadeertan waa ogtiin hadda waqtiga taagan abaaraha jira aad bay u badan yihiin dadka halka noogu imaada ee aan ku daaweyno kuwii kumiyada ka soo xarooday wayna la joogaan maxay hayto nutrition xataa hadda badana qayb bay ka yihiin hadda bishii u dambeysay hadda bishan gudaheedan ku jirnay ilma ku dhintay oo maxay hayto ku jiray ilmaha nafaqada daran waana socotaa hawsha caruur badan oo ka baxay oo ku yar garooway jiraan oo maxay hayto barnaamijka ka faa'iideystay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in nolol joogo wasiirka caafimaadka iyo agaasimayaasha ugu sareeyay wasaaradda caafimaadka waxaan noogu baahi weyn hadda baahida aanu qabno ay tahay in ardayda laga sabood gareeyo in aqoontoodii loo sii kordhiyo ay helaan oo ay aqoontan community midwifery weeye waa qayb ka mid ah midwiferyada qayb ka mid ah in marka midwifery ballaaran oo degree gaaraya iyo practical
iyo scholarships cesarean section ka qayb geli kara qalliinka hooyada lagu sameeyo waxaan rajeynayaa in wasaaraddu iyo wasiirku maadaama maanta ay nala joogaan iyo wixii kale oo baahi practical ee ardaydan in la sameeyo in soo booqano gabdhaha halkan fadhiyo oo runtii juhdi badan ee wasaaraddu gelisay sidii lagu heli lahaa umulisooyin xirfad leh gobolada oo dhan sida maamuluhu sheegay ardayda halkan fadhida tiradu 20 way u maleynaya sama waxay kamid ahaayeen macaahido 5 ah oo wasaaradda ay u qorshaysay in gobol walba laga hirgeliyo sanadka labaad hadda u socda barkaani waxay wasaaraddu ay ka bixinaysay muxuu ahaa kharashka yar ee ardayda wax ku baranayaan oo ahayd 20 arday marka ugu talagalnay hadafka laga lahaa uu ahaa in xarumaha caafimaadka ee gobolka ku yaala inay helaan xirfadlayaal caafimaad oo aqoontoodu sax tahay waxaanu macadkan iyo afarta kale ku kontrolnay curriculumka wax ku dhigayaan waxaanu shardi kula galnay macallimiinta ay keenay ay dhigaysa inay soo gudbiyaan aanu ka jeegaraynay wasaaraddu waxaa manaanay ilaa 3 jeer 4 jeer bay tiimka ka shaqeeya barnaamijkan report healthiga ama taranka ay yimaadeen waxaa markaa xoog la saaray in umulisooyin la soo saaro سيدا واحد اللي هدي عفمات الربين لا فيرشو لبا إنديكاتر أما محوها لبا هالباج أي الله فيرشا عروض يرير إيوه دمركا أما هو يمكن لا فيرشو واحد كلي وبتبادين كراه هو يدا نوحا وممسن إنه هشو أمورسو حرف الله مركزاس أياد إن محوها قبلها لتابره لبدا سنة إيوه بركاس السعودية مع محوها إيوه حلبارات كلكو 6 سنة 6 سنة كدب waxaa rajeyna inay ka howlgalaan gobolka waxaan ogahay tuulooyin degmeen baa laga soo xulay kaliya baran gudaheeda kaliya maaha gabar walba meeshii laga soo xulay ay tagto ay MSH ku yaala ama health post ku yaala xarunta caafimaad marka meesha ku taala laga howlgeliyo runtii aad baan u soo aragnay faa'iidada ay lahayd oo hadda 270 way hadda dadka la taabaray oo Puntland dhan ka kooban وشنت معد كصاب حري. القابير هو بدباديان هو بدبادين سنقول دوران المستقبل إن شاء الله. سيدا قاسمه الشيء إن شاء الله ده مركي وحبرش ربماته ودتك successful وكوجو ليسته. تتكاسو هدي ربي نود واحد نقول يعني كادر كوزارة عافمات كمان نقول دوران إن شاء الله. ودتك لقى مركا هوش عايزين درب إنه سبب طلعته وبرا باهدا الأركيد تدوي. فرق ما قدنا بنت اللي عنده واحد بانته هاي لابا كونوا أموليسو. تكنيكال واحد لو باهي. لابا كون أو أموليسو حرف الله. مركا ودر وسكراتش ويا لابا تبغولي حاجة هذا. waxaan dhamay 200 isbitaal qaarkood inaad la kulantid case marka kuugu horeys marka way sababta keenta in la isku badbadalo dadka practicada qaadanaya wasaas waxaana uu xariga ka jaray xarunta nafaqeynta caruurta ee degmada Baran dadka hawsha mas'uulka uga caafimaadka iyo maamulka gobolka aad baan ugu faraxsanahay inaan la kulmo waliba goobtiina shaqada aan kula kulmo waxay aad ii farxad galiyay أنا أقدر أفتح كل شقين سنين إن أي أو إكاتو ماشانو ميل وحول بديه هنا قروح ساق قروح بدن آد بتقوم بهالسنتين هوش عيادة قبتين شغالها أرضينا آد بنقوم هالعلنية. دكتور عبد الناصر عثمان عوكي وزيرك وزارة عافمادك Puntland iyo agaasimayaasha la socday ayaa waxa ay kulan la qaateen odayaasha deegaanka iyo waliba maamulka degmada Baran ee gobolka Sanaag iyo odayaasha deegaanka ayaa wasaaradda caafimaadka Puntland ku amaanay sida isdaba joog ah ay tiimankan caafimaad ugu soo kala dirayso gobolka Sanaag iyo waliba deegaanada hoos yimaada oo macnaheedu waxa weeye runtii waxay macna kale inoo sameynaysaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasiirkuna iskama imaan runtii iyadoo xaaladda lagu jiro imaatika uu yimi macnayaal badan iyo afkaar badan baa ka dambeysay ay ugu horeyso wasiirka wax badan baa ka soo horeeyay oo shaqooyin badan oo xilligii lagu jiray aan caadiga ay ahayd oo aan abaartu jirin iyo inta abaartaba ah waxaan kaliya oo maaragtay tusaale idin siin karaa xilligii abaarta lagu jiray emergency-gii ama xaalad degdeg ahayd wasaaradda caafimaadku hadda inta shaqeynaysa wixii hore oo shaqada dhameeyay marka laga saaro 8 kooxood baa jooga oo qolob wax qaabilsan tahay baa gobol ka shaqeynaya howlaha caafimaadka ah marka wasiirka aad iyo aad baan maaragtay ugu mahad celinaynaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa
in wixii dambena haddii aan la idmo sida ay u dadaaleen insha allah ay dalka u soo wadi doonaan anigoo ah suduuha gobolka caafimaadka Puntland maanta farxad weyn ii tahay in wasaaradda caafimaad oo dhameystiran gobolkayga soo gaadhay si noola aragto baahida ka jirta gobolka dhinaca abaaraha iyo saameynaysa dadka aad soo dirteen oo hadda dabagalka ku sameynaysan oo aragnay waa joogaan waa shaqeynayeen in badan oo xogan hadii waa soo haysan hadda inta joogteen waxa ugu daran hadda meelaha aad ugu dhibta badnay waxa weeye meelihii dadku isugu yimi waqtigii la qaxay markii hore la qaxay oo meelaha la bariga loo guuray noqodkii dadka meelaha lagu soo noqday la isugu yimi ummadii isugu timi ama dadkii xeebaha ka imaan noqoto meelahan isugu yimi ama dadkii bari loo soo guuriyo soonayaasha iyo ceelbiyo eriyada isugu yimi meelihii sida magaaladii baa loo wada digay iyadoo loo wada digay jirta caafimaadkii waa liitaa caafimaad loo baahan yahay harraad dadkii wax biyihii baa gideeqala wax la fiiyo u baahan yihiin nafaqay u baahan yihiin waxaa soo dhami waa jiraan in goobaha hadi jeer la dhex maro oo kulli hadda wasaaradda caafimaadka hadda waa joogtaan tiimana waa joogaan waa noo sheegay bal dadka aad loo dhex maro oo loo feejignaado iyadoo way ka codsanaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdinaasir Cusmaan Cuuka ayaa odayaasha u sheegay inay labalaabi doonaan gurmadka waxaana uu bulshada kula dardaarmay inay la shaqeeyaan shaqaalaha adeega caafimaad u gudbinaya bukaanka waxna waa wax noo socda waxna waa wax noo qorshaysan waxna waa wax emergency ku yimi waa waxa abaartu ay keentay ka abaartu ay keentay wadanka dhan kala simantihiin haddar markaan soo baxay maalintaan soo baxay maalintii ka horeysay 26 tii maan u kala diray gobolada qaar kuwii hore u joogay maana qaar ka mid ah ku soo jahaysan yihiin halkan taa waxa dheer caafimaadka asaasiga ah MCH-yada iyo health post-yaasha kala duwan oo wadanka ka furan maanta waxa weyn oo qodobka weyn oo waxay ahayd dhaharna inaanu ka furro meel xarun lagu nafaqeeyo caruurta da'da halkan isbitaalkana aanu qaybta ku daro insha Allah waxaanu kaloo ku talagelaynaa inaanu qaybtaas dhismaheeda inaanu sii ballaarino oo nafaqeynta dirabadno aanu maanta soo furray qalabkeedii waxay u dhanaa aanu keenno dan ugu qiimaha badan ugu ma priority wasaaradda caafimaadka ayay ka mid tahay safarkeena wasiirka sheegay laba nooc isugu jiray mid wuxuu ahaa furitaanka xarumaha hadda uu sheegayo oo aan dhahar iyo baran ka furnay midna wuxuu ahaa dadkii tiyaamkii aan soo dirnay iyo effortkii aan gelinay iyo tiyaam kala duwan oo caafimaadka aan soo dirnay xilligii abaartu jirnay bal tiyaamkaasna wixii ka soo baxay inaan aragno iyaysan noqonin qolkii sadku jiray waa laga dareemaan iyaysan noqonin bal dad laga warqabo oo shaqaynaya iyo waxay qabteen iyo meelaha aan usoo dirnay inay tageen baanu ilaa shalay ilaa xalay ka shaqeynay suduuha caafimaad gobolka ayaana la joogay tiimka qayb ka mid ah la kulannay ayuu ka shaqeynay magaalada dhexdeeda oo MCH ka shaqeynaya ayaan la kulannay safarkayaas wuxuu ahaa labadaas ujeedo lahaa labada ujeedada si fiican bay runtii hadda nagu soo gaboobeen oo aan usoo afjarnay oo runtii aan ugu faraxsanahay siday u hirgaleen sida uu sheegayo isbitaalka hadda baran qaybtii caruurta aan ugu talagalay in hadda laga furo waan soo aragnay meeshii loo ballaarin lahaa dhulkii lagu ballaarin lahaa maamulka isbitaalka iyo shaqada isbitaalka waan la soo kulannay runtii shaqo badan oo aad u fiican baa ka socota isbitaalka barameed sida uu sheegay wasiirku baalka isbitaal la yiraahdaa wuxuu noqday isku tasho gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ayuun ayaa shahaado sharaf gudoonsiiyay wasiirka waxaana uu sheegay inuu shahaadadan ku mutaystay inta uu wasaaradda joogay sida uu adeegyada caafimaad u soo gaarsiinayay bulshada gobolka Sanaag safarka wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa ku soo aadaya xilli si isdaba joog ah wasaaradda caafimaadka Puntland ay dhakhaatiir iyo waliba kalkaaliyaal caafimaad ay u kala dirtay gobolada Puntland daawadayaal barnaamijkii intaas ayuu iga dhan yahay barnaamijka waxaa inii soo diyaariyay anigoo ah Ayuub Cabdirasaaq Maxamed barnaamijkan barnaamij la mid ah inta ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo